degdeg ah daawadayaal waxa aawa magaalada Muqdisho gaar ahaan Hotel Airport lagu weeraray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ku matala dowladda Puntland iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Puntland oo deganaa Hotel Airport ee magaalada Muqdisho sida ay sheegeen xildhibaanadu ciidamo ka amar qaadanayay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Asad Ismaan Diyaano ayaa halkaasi ku soo weeraray iyaga oo ay u geysteen jirdil iyo sidoo kale handadaad waa sida iyagu sheegeen sidoo kalena waxa halkaas laga afduubtay Axmed Cabdi Hurre oo ah la taliye sare dhanka arrimaha bulshada ah madaxweynaha dowladda Puntland ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ka hadlay xarigiisa loo geystay Axmed Cabdi Hurre ayaa sheegay in uu faraha kula jiray faral amniga liddi ku ah isla markaasna baaritaano ay ku socdaan dhanka kale dowladda Puntland ayaa arrinkan ambaareysay waxayna sheegtay in arrintan laga xisaabtami doono madaxda Jubbaland iyo Puntland ayaa u yeeray xildhibaanadii baarlamaanka Soomaaliya ku matalayay labadaas maamul iyaga oo sheegay inay ka arrinsan doonaan xaaladda siyaasadeed ee cakiran Soomaaliya balse qaar ka mid ah xildhibaanada Puntland oo dhawaan ku sii jeeday magaalada Garowe ayaa hawada sare laga soo celiyay iyagoo la sheegay in aysan magaalada Muqdisho ka bixi doonin ilaa ay amar dambe madaxda Soomaaliya ayaa iyagu wada inay ansixiyaan dastuurka cusub uu yeelan doonto Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kaas oo aan heshiis lagu ahayn inta badanna ay diidan yihiin siyaasiyiinta iyo sidoo kale maamulada Jubbaland iyo Puntland xildhibaanada caawilada la weeraray ayaa iyaguna kamid ah xildhibaanada diidan in la ansixiyo dastuurkan oo ay sheegeen in aan heshiis lagu ahayn balse madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa raba in ay si khasab ah ku meel mariyaan dastuurkan oo aan heshiis lagu ahayn waxaana maanta loo madlan yahay in la meel mariyo balse waxay wararku sheegayaan in ilaa iyo hadda aysan buuxin kooramka xildhibaanada ansixin doona dastuurkan cusub sidaas darteedna madaxda federaalka Soomaaliya ay u wado olole ay ku helayso xildhibaano buuxiya kooramka inta ka dhiman wixii warar ah oo ka soo kordha siyaasadda Soomaaliya ee cakiran halkan ayaan kula wadaagi doonaa daawada